wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Sanaag ayaa maanta si ballaaran u xustay xuska maalinta deegaanka adduunka oo loo aasteeyay 5 bisha 6 ee sanad kasta lagu xuso caalamka. Xuska maalinta deegaanka adduunka oo ka qabsoontay xarunta wasaaradda deegaanka ee degmada Ceergaabo ayaa waxaa ka soo qayb galay barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag, maayir ku-xigeenka degmada Ceergaabo, taliyaha qaybta booliiska, isuduwayaal, aqoon-yahano, ganacsato, shaqaalaha wasaaradda iyo marti sharaf kale. Ugu horreynna waxaa munaasabadan xuska maalinta deegaanka adduunka ka hadlay isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Xuseen Cismaan Xuseen Talaahi. waxaan mar labaad iyo mar koowaad maslaxad buu mahadcelinayaa xukuumadda Soomaaliland, madaxweynaha iyo wasiirka wasaaradda deegaanka iyo golayaasha dhammaan iyo shaqaalaweynaha shirkadda ganacsiga ee Unigas inay tahay runtii aan aad ugu bogaadinayo juhdiga badan ay ku soo bixisay iyadii kooxdii kurugeedu inay dalka u soo gurmadeen si ay u keenaan wax laga maarmi karo arrimaha jirista iyo gubista iyo dhuxulaysiga. Fariinteeduna waxa weeye in la diirigeliyo, in la taabageliyo ka hortagga xaalifka iyo nabad guurka guud ahaan dalkeena ka jira, gaar ahaan gobolkeena ka jira. Dadka waan mahadcelinayaa, jiidahaanu tagnay runtii dadku waa nala qaatay, waanu kala qoranay, waanu soo wacyigelinay. berri wixii laga bilaabana waanu bilaabi doonaa. laaba sharciga waafaqsan ayaanu qaadaynaa. ha ku seexanina bil rabadan baa dhalanaysa caawa. berrito waan ku afuraynaa tuulo walba. run baan idiin sheegayaa, waana la arki doonaa. haddaan idiin sheegayaa stationkaa soo buuxsamay, maxkamaddaa soo joogta, wiiggaa gudihiisa ballan baan ku qaaday inaan keeno. waxaa iyaguna halkaasi hadalka isaga dambeeyey xubno isugu jiray isuduwayaal, qaar ka mida wasaaradaha gobolka, taliyaha qaybta booliiska, mid ka mida saraakiisha ciidanka militariga ee gobolka Sanaag, mas'uuliyiinta shirkadaha Unigas iyo Somgam iyo madax dhaqameed kale. ilaalinta deegaanku inay tahay muhiimadda ugu weyn ee cid walba bixinayso. annagu oo ah shirkadda Mighty Frankincense ama Somgam beeyada ayaanu iibsanaa ka baaximstarnaa. waxaa ka mid tahay beeyada waxyaabaha sida xun deegaanka imka loo jafo loo baabiinayo. waxaanu xoog saari doonaa oo la shaqayn doonaa wasaaradda. waxaanu nahay dadka ugu badan cashuurta bixiya dadweynaha reer Sanaag, especially reer Ceergaabo, in wixii lagu badbaadin lahaa dhirta la idin hayo, taasoo ayna shidataan shooladaha iyo gaastii. waayo haddaad xul weydaan bedelkeedii waa inaa heshaan. bedelkeedina waxa weeyaan shooladii iyo gaastii. dhirta inaga faa'iido inoo tahay. badanaa gobolka Sanaag markaanu ka hadlayno waxaanu sameynay nursery-ga imika halka idinkaga muuqda ilaa 30,000 oo geed ayaanu diyaarinay. waanu doonaynaa inaanu ku beerno deegaanka buurta daalo ee la soo taxay inaynu ku badbaadinaabaa muhiima. dalkeennii iyo dadkeennii inaynu inagu u tudhnaabaa muhiima. waa noole oo waynu wada sheegnay, laakiin waa inaynu ku tashanaa maskaxdeena saliimka iyo indho caafimaad qaba ku eegnaa sidaynu ku badbaadin lahayn. magacaygu waa Suldaan Saciid Maxamuud Cali, ku hadlaya afka madax dhaqameedka gobolka Sanaag. waxaanu leenahay aad iyo aad baanu kaagala shaqaynaynaa deegaanka iyo horumarinta reer miyigaba. diyaar bay dadku ku yihiin, miyi iyo magaalaba in loo guntado uun baanu ku soo ururaynaa. hadda iyada oo maanta la beeraya dhir, inuu nin iimaan laawaa oo doonaya inuu shilin ku iibsadaana dhirta gubo loo dulqaadan maayo, bilayskuna u dulqaadan maayo. waxaanan uga digayaa kuwa dhirta gubaya ee dhirta baabi'inaya in ay la kulmi doonaan cawaaqib xumo. maayir ku-xigeenka degmada Ceergaabo iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag ayaa isuduwaha wasaaradda deegaanka gobolka Sanaag ku ammaanay shaqada baaxadda leh ee uu ka hayo gobolka Sanaag. munaasabadan qaaliga ah iyagu soo diyaariyey oo iyagoo ku xusaaya maalinta caamka ku xusaaya aad iyo aad u mahadsan yihiin. waxaan leeyahay maalintaasi waa maalin inagu weyn. waxaan leeyahay wardhirta ka daaya dabkana daba wadaan. bulshada reer Sanaagna waxaan leeyahay wardhirta ha la beero oo qof walba isu xilsaar bal inaad geed beerto. wasaaradana wasaarad aad u wanaagsan, siduu hawlo badan buu qabtaa, waa nin firfircoon oo aad u shaqeeya. gabagabadina waxaa halkaasi lagu qaybiyey dhirtii loogu talagalay marti sharafta kala duwan ee ka soo qayb gashay munaasabadaasi. intaasi kadibna barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag iyo isuduwaha wasaaradda deegaanka ayaa si wadajir ah u beeray mid ka mid a dhirtii goobtaasi la keenay. Farxad Maxamuud Geedi, telefishinka caalamiga ee Soomaaliya News TV, magaalada Ceergaabo.